cudurrada dunida maanta ugu khatarta badan waxaa ka mid ah kansarka oo leh noocyo kala duwan. Sababaha ugu badan ee keena cudurka kansarka waxa ay dhakhaatiirtu ku sheegeen nidaamka cunto oo ka khaldama dadka. Cilmi baarisyo kala duwan oo arrintan laga sameeyey ayaa daahfuray in ay jiraan maadooyin kansar oo cuntooyin fara badan oo aad loo isticmaalo ku qarsoon, taas oo sabab u noqon karta inuu qofka ku dhaco cudurkan oo keena khatar nololeed iyo mid maaliyadeed. Sidoo kalena ay la dhibaataysan yihiin malaayiin dad oo ku nool daafaha caalamka. Qormadan oo aanu ka soo xiganay shabakadda wararka ee Alcarabiya ayaa lagu sheegay qaar ka mid ah cuntooyinka keeni kara kansarka ay tahay in laga dheeraado. Haddaba ku soo dhawow 8 cunto oo sababi kara cudurka kansarka. Ka hor intaan gudagelin barnaamijka, like sar page-keena oo share garee videoga. Mahadsanid. Lambarka koowaad, baradhada shiilan. Baradhada shiilan oo bacaha lagu keeno oo loo yaqaan magaca chips waxay ka mid tahay cuntooyinka kansarka sababa. Waxa ay ahayd sanadkii 2002 markii cilmi baarayaal u dhashay waddanka Sweden ay sheegeen in baradhadan lagu kariyay dab uu kor u dhaafay heerkulbeegiisu 120 digrii iyo inay ku jirto maadada loo yaqaan acrylamide oo la isku waafaqsan yahay inay tahay maado keenta kansarka ama sababta. Nasiib darro, chips-ka aad ayuu ugu soo badanayaa waddanka, waalidiintana iyagoo aan ogeyn ay u gadaan carruurtooda. Lambarka labaad, kalluunka la dhaqdo. meelo badan oo adduunka ka tirsan kalluunka la cuno lama soo dabto ee waa la dhaqdaa, waxaana lagu xanaaneeyaa barkado waaweyn oo lagu daaweeyey qallajiyaal iyo sunta cayayaanka disha oo lagu shubo barkadahaas. sidaa darteed cilmi-baarayaashu waxay sheegayaan in kalluunka ganacsi ahaanta loo dhaqdo ay halistiisu ka badan tahay faa'iidadiisa, ayna dhici karto inuu keeno cudurka kansarka. Lambar 3, sonkorta loo yaqaano high fructose corn syrup waa nooc ka mid ah sonkorta oo warshad soo martay weliba qaarkeed laga sameeyey geedka qasabka oo gacan ku rimis ah. Lambarka 4, hilibka warshadaysan waa hilib la soo warshadeeyey kadibna la shiilay. waxaa ka mid ah hilibka loo yaqaano hot dogs. cilmi-baarayaashu waxay sheegeen hilibka qaabkan loo warshadeeyo markii la shiilo inuu soo daayo maado kansarka keenta oo loo yaqaano heterocycle aromatic amines. sidaas awgeed, hilibka noocan oo kale ah waxaa habboon in biyo ku lagu kariyo ama dabka lala saaro digsi ama birtaawo. Lambarka 5, khudradda iyo cuntada ka soo gooda dhirta lagu buufiyey sunta cayayaanka. inta badan sunta cayayaanka beeraha ka disha ayaa la aaminsan yahay inay khatar ku tahay caafimaadka carruurta iyo dadka waaweyn ee cuna khudradda ka soo gooday beerta suntaas lagu buufiyey. waxaanay dhakhaatiirtu sheegeen in sunta beeruhu ay tahay sababaha ugu waaweyn ee keeni kara xanuunka kansarka. Lambarka 6, tamaandhada qasaacadaysan yaanyo shiishiidka canid tomatoes. inkasta oo ay tamaandhadu ka mid tahay cuntooyinka kansarka la dagaalama maadaama uu ku jiro xaddi aad u badan oo ah maadooyinka mariidka la dagaalama, haddana cilmi-baarisaha dheeraadka ah ee lagu sameeyey tamaandhada qasaacadaysan ayaa muujinaya inay cad tahay inay sabab u noqon karto noocyo ka mid ah kansarka. sababtuna ay tahay maadada kiimikaad ee bisphenol A oo ay warshaduhu u adeegsadaan ilaalinta cuntooyinka qasaacadaysan si aanay u xumaan. maadada kiimikaad ee bisphenol A waxa ay kor u qaadaa khatarta ah inuu qofka ku dhaco cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan sida nooca ku dhaca naasaha iyo qanjidhada raganimada ee ragga. waxa kale oo ay maadadani keeni kartaa madhalaysnimo, qaangaadhka oo waqtigiisa kasoo degdega ama kasoo hormara, iyo khalkhal ku dhaca dheefshiidka cuntada, iyadoo sidoo kale sababi karta cudurka macaanka noociisa 2. Lambarka 7, dufan ka samaysan hydrogen. saliidaha ama dufanka hydrogenka laga dhigay waa dufan ay warshaduhu ku daraan cuntooyinka qasaacadaysan oo ka ilaaliya inay xumaadaan ama isbedel ku dhaco cuntada waqti dheer. laakiin sidaas ay tahay, waxay dhakhaatiirtu sheegayaan inay raad taban ku yeelato xuubka unugyada, taas oo sababta inay u nuglaadaan cudurka kansarka. Lambarka 8, saloolka ama daangada. dood ayaa ka taagan in saloolka ama daangadu lagu dubay qalabka microwave in ay tahay mid keeni karta kansarka sanbabada ku dhaca, maadaama diraasado iyo cilmi-baarisyo la sameeyey ay sheegeen sidaas. intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena maanta ee ku saabsan caafimaadka. waad ku mahadsantahay daawashadaada.